Welcome back. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qaybihii hore waxaan maleynayaa waxaan kaga hadalnay sida loo select gareeyo goobaha aad wax kaga qoranayso shaashada. Tusaale markaad sida u taabto oo kala highlighted waaye oo way select gareysantahay waan doortay waxaan rabaa ku qoran karaa sheegnay. Sidoo kale waxaan sheegnay haddii aan rabo muxuu ahaa inaan goob badan doorto sidaas oo kale aan doorto in haddii aan mouse isticmaalayo mouse-ka sida ugu jeedo dhinaca midigta aan rabo inay ugu badato ama dhinaca hoose ama bidix sidaas aan ugu socon karo anoo mouse-ka sida ugu dhagan oo fartayda ku haya. Hayeeshee markii aad isticmaalayso computerka aad mouse haysanin sida laptopyada oo kale waxaad isticmaalaysaa flaaraha iyo shift keyga isla isticmaalaysaa. Tusaale shift haddaan qabto oo flaarta dhinaca midig aan sida u taabto saas u socon. Haddaan xagga hoose aado saas u wadaysaa. Haddaan tan bidixda aan taabto bidixay u wadaysaa oo halkaas aadinaysaa. Haddii tan sare aan taabto dhinacaas aadinaysaa oo dhinaca kore aan u highlight gareyn karaa. Marka qaababkaasaan sheegnay laakiin ka waran haddii aad rabto halkan haddaan b ku qoro and then I mean b halka ku qoro c aan ku qoro sida u highlight gareynaysaa dhamaantooda inaad wada highlight gareysaad rabtaa. Tusaale ahaan qaabka loo highlight gareynaa waxa waa koow inaad sidaas dhahdo iyo in mataqaana control a aad dhahdo control iyo a aad isla qabato. Control iyo a markaad isla qabatana dee wuxuu highlight gareynaa ama uu dooranaya dhammaan inta gudaha ku jirto oon aragno ahaayeen dee 1 milyan iyo wax kasii sarreeya. marka taa looma baahno si qaas oo kaleeta ku highlight gareyn karta waxaad isticmaalaysaa control iyo waxaad isla isticmaalaysaa mouse-ka isla isticmaalaysaa. So control button aan taabanaya anoo control button taabahaya yaan halkaa click dhahaya waan tuujinayaa tanna waan tuujinayaa saddexdooda hadda waa highlight gareysan yihiin. haddii aan rabo inaan colorka ka bedelo hal mar color sida ugu dhufana waana ka wada bedelmaa dhammaantooda ka wada bedelmaa colorka. marka qaabkaas loogu highlight gareeyaa. waxaa kaloo tan ka hadalnay waxaan nidhi save for example failkan hadda ima save gareysan. haddii aan rabo inaan save gareeyo qaabkan ku save gareyn karaa oo meel aan ku dhigi karaa ku keedin karaa inaan halkaa taabto oo save as aan dhaho and then kadib halkan aan taabto kadib muxuu ahaa magaca u baxsho let's say book magaca book wankaasaan u daaynayaa dan waxaan ku save gareynaa ama aan ku keedinaya meeshaan ku keedin lahaa dooranaya waxaan ku keedinayaa desktopkayga ku keedinayaa desktopka haddaan ku keediyo then okay aan saasuu igu save garoobay. laakiin haddii aan wax ka bedelo waxyaabo kale aan ku qoro tusaale ahaan failkan waxyaabo kale aan ku qoro oo aan rabo inaan mar labaad save gareeyo waxaa waaye control s horey aan usoo aragnay haddii aan taabto wuu save gareynayaa laakiin isla failkii ku save gareynayaa. ka waran haddii failkan cusubna aan rabo inaan save gareysto oon wax ka bedelay kii hore isagana inuu desktop isii saarnaa isagoo sidiisa isii saarnaada aan rabo markaasoo kale waxaan aadayaa mar labaadaan save gareynayaa magacaan ka bedelayaa laakiin magaca ayaan ka bedelayaa. markaan magac ka bedelana wax kaleetu yeelanaa. tusaale arag hadda marka failka saan uu save gareysan yahay mar labaad inaad save as aad rabtid shortcutka waxaa waaye F2. so F2 haddii aan taabto qaabkaas igu soo baxaya kadib waxaan sameynayaa magacaan ka bedelanaa meesha 1 uu ka yahay oo kale aan 2 ka dhiganaa tusaale ahaan. okay 2 markaan ka dhigisla desktopkii aan soo saaraya fiirina horta intaan 2da ka bedelin wuxuu sameynayo haddaan halkaa ku save gareeyo dabcan click aan dhaho wuxuu idhahayaa wuu jiraa already book 1 ma mid kale aad hadda save gareey ilaan kan kale waxbaa laga bedelmo. kii hore wuxuu lahaa oo kaliya xarfahaas yar kuma qorneen qaybtan gadaal aan ka bedelnay. marka wuxuu ku leeyahay tan dib aad ka bedeshay isku nooc ma aha tii hore isla meesha ma rabtaa inaad ku save gareyso wuu jiraa ilaan boogana maya ma rabo. marka aniga waxaan rabaa mid kale inaan save gareysto marka lambarka meesha hal ka yahan laba ka dhigaya waan iska save gareysanayaa kan save gareysto. haddii aan desktopkayga aado waxaad arkaysaa inay waa kana book 1kii waa ka halka ku yaalo book 2gana waa kana. book 1ka haddaan furo waxaad arkaysaa haddaan double click aan dhahay markaan furaya waa another way on arki doona insha Allah. haddaan furo waxaad arkaysaa waa ka qaybta hore bisa ku jirta fiir haddii aan ka baxo book 1ka on muxuu ahaa book 2ga haddii aan furo fiiri wuxuu leeyahay wixii dheeraadka aan ku darno leeyahay. marka labada failba laba gaar aan u kala save gareeyay si qaab kale u kala save gareeyay. tan kale waxaa kaloo jirta markaad save gareynayso dee dabcan haddii aad dhahdo F2 iyo haddii aad halkan ka aadaba oo failka sida u save gareyso oo halka aad taabatid halkaad ku keedsan lahayd halkan eeg waxaa ku qoran Excel workbook haddaan save gareyn rabo qaabkan u save gareyn karaa halkaa ku dhufo tusaale halkaa markaan ku dhufto waxay soo baxaya dhammaan ilan save as aan dhihi rabaa save as u keedi asagoo oo sida camal soo qaab ku noqon karaa waa kana Excel workbook Excel macro waxaan u save gareyn karaa Excel workbook waa caadiya sida hadda uu yahay waxaan ku save gareyn karaa Excel macro enabled waxyaabo kaleeto macro la binary actions all this laakiin most interesting waxaa waay tan oo kale fiiri Excel 9723 waa tusaalahaan macnaha waxaa waay haddaan sidiisa caadi workbook ku save gareeyo dadka isticmaalayo Excel oo la sameeyey wixii ka horeeyay 97kii 2003gii wixii la sameeyey Excelkaas isticmaalaya computerkooda ku isticmaalaya failka haddaan save gareeyo ma furan karaan ilaa aniga 2016 aan isticmaalaya haddaan sidiisaas ku save gareeyo dadka computerkooda ku isticmaalaya 97 ama 203
ma furan karaan mana akhrin karaan uma furi karo awooddaas ma laha marka haddii aan rabo inaan u diro qof muxuu ahaa excel version 97 ama 2003 isticmaalay computer ku isticmaalay inuu furto haddii aan rabo tana ku save garaynaya qaabkana ku save garaynaya si hadhow qofka alaale qofka computerkiisa uu ku isticmaalo 97 iyo 203 wuu furani karaa another interesting part waxaa waaye pdf oo kale ku save garayn kartaa excel kaaga pdf ka dhigan kartaa you can save it as pdf haddaan ku save garay tusaale ahaan okay click aan dhahaya click haddaan dhahana okay answer the end isla markaas waa ka uu save garaynaya wuuna kuu furaya waa kana isagoo furan isla markaa hore ka furaya now waxaan arkaynaa marka file sida loo furo qaabka file oo horey aad u save garayso desktop ku saaran sida loo furi lahaa ama meel kale kugu jiro sida caadiga waxaa waa inaad file intaad taabatid oo tuujiso kadib aad imaato open halkan ku qoran click aad dhahdid waa kuwana waxay oo dhan baryahan aan furay ama aan save garaynayo idil waa kana halkan aan markaas anaga ka furan karaa for example book 2 haddaan rabo inaan furto book 2 aan click ku dhahaya wuu ii furmaayo ka book 2 furmaya berigii hore double click wax noocaas la dhihi jiray laakiin hadda like one click haddaan dhado hor u kaaga furmaya sidoo kale shortcutka wuxuu noqonayaa control O because open waxay ku bilaabanaysaa O so open aan dhihi kartaa waxaan dhihi karaa hadda tusaale ahaan control O haddaan dhaho wakaa bartii u keenaya marka meeshaan raba aniga ka dooranaya file alla failka aan rabaa kuna failashii oo dhan halkan igu jiro haddii mid qaasi aan rabo inaan raadsado ama drive ku jirana halkan furan karaa ama halkan haddaan desktop aan rabo already desktop waa kana haddaan si qaas inaan waada rabana browser aan dhaha desktop aan taabanaya ka dambe halkan kasoo dooranaya qaabkaas aan ku furanaya marka shortcutyada way jiraan waxay kaa caawinayaan inaad dirbo muxuu si quick oo degdeg ah oo isticmaasho oo barnaamijka si fiican u isticmaasho ku baran laakiin inta badan lama xifdin karo dabcan xifdi ku meel ma xifdin kartid laakiin kuwa muxuu ahaa aad iyo aad marka loo isticmaal badan inaad xifdo iska fiican qaabka lagu fahmo shortcutyada waxa weeyaan inaad tusaale qalin aad saarto example haddii halkan qalin saaro oo kala fiiri eeg halka kaada ku qoran laakiin haddaan qalin sida u saaro waxa ii soo baxayso eeg cut or control plus x ina isla taabo macnaa wixii aad jarayso control x so shortcutka aad rabto sidaas oo kale qalinka u saaraysaa kan oo kale shortcut ma laha it doesn't have shortcut copy laakiin shortcut uu leeyahay fiilamka qalinka u saaro waa ka waxa weeyaan control c okay sidan oo kale aad tagto kan waa ka shortcut uu leeyahay waxa control i kan haddaan shortcut aan saaro wuxuu noqonaa waa ka control b adoo qalinka sida u dul saaro si aad u fahanto exactly shortcutka button kasta shortcutkiisa sida ugu dhaqso badan loo isticmaalo si aad ku fahanto waxaad saaraysaa qalinka sida u dul saaraysaa kadibna ku soo saaray kuwa aan lahayn kuma soo saaraan dabcan sida kan oo kale ma laha laakiin kuwan oo kale way ku soo saaraan weyle kan oo kale dabcan ma laha isagana sidoo kale waxa la lagu xiilay way ku soo saarayaan eegdis kan oo kale fiiri control u way ku soo saaraan soo hal u saari kartaa caadi ku soo baxayaan kuwa aan lahayn dabcan ma laha shortcut ma laha so mostly waa ka shortcut ma laha